بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة السهمي، وأنا أبدأ بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أحبتي في الله، وحان كسو جرني كتاب كان صور من حياة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وحان سو قارني درسك اللبئي الطبناد كتاب كان وحساك وكبل لابنا يا صحابي السدحات لديه جري عبد الله بن حذافة السهمي. waxaan soo dhammaynay saciid ibnu caamir iyo atufayl ibnu camar, labadaasaanu soo dhammaynay. saxaabigan waa kii saddexaad oynu bilaabayno qisadiisu. qiso aad iyo aad u xanuun badan buu leeyahay oonu gaari doonaa insha allah. cabdulaahi halkudhigiisa waxaa weeye: xaqun waxaa waajib ku ah calaa kulli muslimin, qof kastoo muslim ah, an yuqabila inuu dhunkoodo ra'sa cabdullaahi bni xudaafata, cabdullaahi bni xudaafata madaxiisa inuu dhunkoodo ayaa qofkas xaq ku ah. wa ana anigaana abda-u bilaabayo bidaalika dhunkooshadaas oo cabdullaahi inaan madaxa ka dhunkoodo ah. hadalkaasi waxaa yidhi cumar bnu lkhadaab radia allaahu canhu wa ardaah. qisaday ku imaatayna waanu gaari doonaa. sayidina cumar baa wuxuu yidhi, qof kastoo muslima waxaa waajib ku ah inuu cabdullaahi bni xudaafata sahmi madaxa uu ka dhunkoodo. anigoo madaxweynihii muslimiinta ayaana bilaabayuu yidhi cumar, isagaana bilaabay, muslimiintiina way ku daydeen. qisadaasu waan gaari doonaa darsiga, yacnii inta qisada aan ku jirna saxaabigayna soo mari doontaa. batalu qisatina, qisadanada geesigeedu, batal waa geesi iyo halyey. qisadeennu halyeyga ay ka hadlayso iyo geesiga ay ka hadlayso. haadihi oo tan a qisadu, rajulun waa nin, rajulkaasoo min asaxaabati, asxaabtii nabiga ka mid ah, rajulkaasoo yudcaa loogu yeero cabdallaahi bni xudaafata asahmi, magaciisa loogu dhawaaqo la yiraahdo cabdullaahi bni xudaafata asahmi. laqad kaana waxaa ahaa fii wusci taariikhi, taariikhda ballaarkeeda iyo muggeeda iyo weyninkeeda, an yamura inuu soo maro bi haada arajuli, ninkan uu soo maro. taariikhda ballaaran ee dunida soo martay, dad badan baa soo maray. raggii soo maray waxaa ka mid ahaa wiilkan hadda aynu ka hadlayno. kamaa mara, sida uu u soo maray taariikhdu, bimalaayiini alcarabi, malaayiin carbeed oo min qablihi isaga ka horreysay. malaayiin carbeed baa taariikhda soo maray oo min qablihi saxaabigan ka horreysay. duuna an ya'baha lahum, iyadoo uusan u aaba yeelin, dan uusan ka gelin taariikhdu dadkii soo maray malaayiinta ahaa. ow yakhduruu, duuna an yakhduruu, isagoo uusan ku soo dhicin dadkii faraha badnaa, lahu taariikhdu calaa baalin, qalbigiisaba uusan ku soo dhicin. bimacnaa wuxuu ka wadaa, bimacnaa taariikhdii ballaarneed waxaa soo maray ninka kan ayaa soo maray. sida taariikhdaas bay u soo mareen malaayiin carbeed saxaabigan ka hor. dad badan oo geesiyaal oo isagoo kala ah jiray, laakiin taariikhdu uma aaba yeelin, mana ku soo dhicin qalbiga taariikhda dadkaas inay ka sheekaysa kuma soo dhicin. laakiin ninkani in taariikhdu ay ka sheekayso qalbigeeda uu ku soo dhaco, sabab baa keenay. sababkana waa islaamka weeye. intaasuu raa sheekh inuu ku dhaho. batalu qisatina, qisadanada geesigeeda, haadihi oo tan ee rajulun waa nin oo min asaxaabati, saxaabadii nabiga ka mid ah, yudcaa waxaa loogu dhawaaqaa cabdallaahi bni xudaafata asahmi. laqad kaana waxaa ahaa fii wusci taariikhi, taariikhda waasicnimadeeda iyo ballaarkeeda iyo muggeeda iyo gudaweyninkeedu,
أن يمر إنو صومر بهذا الرجل ننكان إنو صومر تاريخ ذا كما مر سيدا وصومري بملايين العربي ملايين عربات ومن قبله إساق كوريسي دون أن يأبه لهم إساقو تاريخ ذا أوسن وآبي لندتكاس أو دن أوسن كجلين أو يخضروا دون أن يخضروا إساقو أوسن كسو دبعين له تاريخ ذي على بال قلبي غضب أوسن كسو دعين يعني على بال قلبي تاريخ ذا كمسو دعين دت كان كلا نين كوري ملايين تا لكن الإسلام إسلام كالعظيم وينا أتاح وحو فرصد أسيي لعبد الله بن حذافة السهم الصحابي اللي يرادو أن يلقى إنو لكلمه سيدي الدنيا ذا اللبذي ذي بقر في زمانه حلقي عبد الله أونولا لبذي بقر الدون كما موليسيه قامينيسي إنو عبد الله لكلمه أيو إسلام كفرصد أسيي كسرى أها ملك الفرس فرس بقر كاذيها إيوة قيصرها عظيم الرومي رير روم بقر كاذيها إيما الحوينه هذا وحوكو يري لكن الإسلام العظيم إسلام كوينا أتاح وحو فرصد أسيي لعبد الله بن حذافة السهم صحابي اللي رادو أن يلقى إنو لكلمه سيدي الدنيا ذا لبذا ذي بقر في زمانه حلقي نولا عبد الله بن حذافة السهمي أدون كل بد دولدود ووين باكجرتي حلقاس عبد الله نولا دولدنا واتي قلبيتكم محوها هاي الرومان كاهيد مدنا واتي بريغو فرص أهيد وإيرانيين تاهيد لبدي بقر الدنيا أتلنا يقو كبير كبدنا يقو ووينا إنو لكلمو أيو إسلام كفرصد أسيي عبد الله بن حذافة السهمي لبدا السيد كوي أهايين كسرى يا لديه جري ملك الفرس ومتكوضة لبدا السيد متكمدة كسرى لديه جري وانا بقر كإيرانيين سان هوري أصوت الماني إيرانيين بقر كصو صامرة كسرى لديه جري مقع سوا مقع يعني هالكوديك بقر كأوليو أها هدود انت كم بدل أما متكال الله دورتاي كسرى بلدهايا كدب مقع كلاو عادي الله راعينيا وقيصر كان لبادنا قيصر بوها سيد كان لباد عظيم الرومي اسنا قيصر نمانكاس رومانكا مدحوينك صومر قيصر بلديه جري دبداد بمقع خاصة يالانيا يمن وصومرني إثيوبيا وصومرني قالوا والبابا مقع قوني بي مدح دوضا لهيد مصر سيدا سوكالا مقع قوني فراعنا لديه جري وحويري وأن يكون إنو أهاضو له صحابي إنو أهاضو أيو إسلامكي سورقل أسيي مع كل أركو منهما لبداس مدحوين كمدا قصة داسو ما تزال أين كزولين تعيها إني حفظنا يسوي ويلين يسو ذاكرة الدهر زمن كحسوس تيسا ويرويها ورنا يو تاريخ داسي إيا قصة داسي اللسان التاريخي تاريخ ذا عرب كذي ورينيو إسلامك وحاكرو نكان صحابيان وفرصد وسيي متك الصوم مدحداسي لبدا أنو صومرناي كميدا إن قصة كويشو الساقي إيو دحمرتي مدحوينهاس قصة داسو أينن كزولينين زمنك ذاكرديسي حسوستيسي إني حفظيسانتهاي أي ويلينيسو عربك تاريخ ذا نورينهايو أنرو من إلى قيام الساعة وصعونيا أما قصته صحابيا قصديسو مع كسرى معي سنة وقصاء ملك الفرس نمانك إيرانيين تبقر كاذنا كسره فكانت وحيد على قصداسو في السنة السادسة للهجرة سنة كي اللي حاضر هجرته حين قرت ويد على عزم النبي صلى الله عليه وسلم صوبانه أوغو أنصدي أن يبعث إنو ديرو طائفة كوح من أصحابه النبي أصحابتي سكمدا إنو ديرو بكتب ورقدنا أو نبي الله ديرو دتكاسي إلى ملوك الأعاجم نمانك عاجمتا عرب يعجم بدتك كلين عرب يعجم وعرب كسر مع عاجم لي هذا
boqorradii acaajimtana uu u diro warqadahaas ay u geeyaan yadcuuhum iyagoo nimankaani iyo daa'ifadan ugu yeerayo hum acaajimtii boqorradooda fiihaa warqadaha dhexdooda ilal islaami islaamkay ugu yeerayaan. sanadkii 6aad ee hijradu waa taqaanaan oo markii nabiga laga soo celiyey sulxul xudaybiya u dhaco maka loo diiday waa tii quraysh nabigu uu la heshiiyey 10 sano inaan la dagaalamin shuruud badan oo aad ugu adkaatay muslimiintan uu gaalada la galay. markuu nabiga helay fursadaas oo in heshiis uu la galay quraysh yaa wuxuu bilaabay inuu warqado nabiga u diro madaxdii dunida ay ugu waaweyn yihiin labadan boqor hadda aan gacanta ku hayn. marka dad saxaabadiisa ka mid ah intuu warqado u dhiibay buu ordo madaxdaas loo geeyo iyadoo loogu yeeray islaamka. wuxuu ku yiri marka sanadii 6aad ee hijrada markii nabiga uu go'aansaday ay yabcatha inuu diro taa'ifatan koox oo min asxaabi nabiga asxaabtiisa ka mid ah bikutubin warqaduu nabiga la diray. yaa loo diray warqadahaasi ilaa muluukil acaajimi carabtana waa lamide acaajimta oon carabta ahayn boqorradoodii buu nabigu warqado ugu dhiibay dadkan inay gaarsiiyaan. kuwa carbeedna waa lamid yadcuuhum isagoo nabiga ugu yeerayo dadkaas fiiha warqadaha dhexdooda waxa ku qoran ayaa nabigu wuxuu gaaladaas ugu yeeray ilal islaam inay islaamka soo galaan oo warqadaha waxaa ku qoran dadkaas loo geynaya boqorrada inay soo islaamaan baa ku qoran. walaqad kaana rasuulu sala allahu calayhi wasalam nabiga eebba wuxuu ahaa naxariisi nabadgelyo dushiisa allaha yeele yuqadiru mid qiyaaso khutuurata haadihi almuhima muhimadan iyo shaqadan oo tan ah khatarka ka imaanayo nabiga wuu u qiyaasnaa. dhibaatada ay leedahay iyo dhibka ay leedahay in warqad intuu qoro nin saxaabi u dhiibo madaxweynihii gaalada ugu weynaa loo geeyahay khuduurada iyo khatarta ay leedahay nabigu way u qiyaasneed way u muuqatay laakiin danka weyn buu nabigu watay calayhi salaatu wasalaam. walaqad kaana rasuulu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa nabiga eebbe naxariisi nabadgelyo dushiisa allaha yeele yuqadiru mid ay u qadarantahay u qiyaasan tahay ay u muuqato khutuurata haadihi almuhima muhimadan iyo shaqadan oo tan ah khatarta ay leedahay way u qiyaasneed. fa haaulaa'i rusushaas oo kuwaas ah rusul bare waxaa weeye nimankan la dirhayaa laga wadaa ogow rusushii aad taqiinay lagama wado qof kastoo meel loo dira rasuul baa la yidhaahdaa. marka daa'ifadaas la dirhaya warqadaha loo dhiibahayaa laga wadaa rususha. si kale haddaan u dhigno waa wufuudda la dirhayo. fa haaulaa'i rusuli rusushaasi wufuuddaas oo kuwaas ah sayadhabuuna waxay aadi doonaan ilaa bilaadin magaalooyin bay aadi doonaan waa dadka nabiga uu dirhaye magaalooyinkaasoo naa'iyatin fog oo ka fog muxuu ahaaye madiina aada ooga fog. magaalooyin fog baa loo dirhaya ay aadi doonaan magaalooyinkaasoo laa cahda lahum wax aqoon ah bihaa magaalooyinkaas uusan ugu sugnaanin min qablu horay. dadkan wufuudaho nabiga uu dirahayo warqadaha uu u dhiibahayo magaalooyin fog buu u dirahayaa magaalooyinkaas fogna aqoon uma lahan dadka nabiga uu dirahayo saxaabada ah magaalooyin ay horey u tageen oo ay garanayaan ay aqoon u leeyihiin ma ahan. laa cahda lahum wax aqoon ah ooma sugnaanin bihaa magaalooyinkaas ooguma sugnaanin min qablo horay magaalooyin ay horey u garan jireen ay tegi jireen oo safar ku tegi jireen maahan. wahum dadka nabiga uu dirahaya rususha ah wufuudda ah yajhaluuna waxay jaahil ka yihiin oona garanaynin luqaati tilka albilaadi magaalooyinkaas uu u dirahayo luqooyinkoodina ma garanayaan. dadkan loo dirahayo ee ay u tegi doonaan luqaday ku hadlayaana ma yaqaanaan saxaabada uu nabiga dirhaya calayhi salaatu wasalaam. walaa yacrifuuna ma garanayaan dadka nabiga uu dirahayo wufuudda shay-an shayna ka garan mayaan can amsijati muluukiha magaalooyinkaas boqorrada ka taliyo dabeecadahooda iyo dhaqamaday leeyihiinna waxba ka garan mayaan. yacni duruufta ka jirta meesha lagu balbalaarinaya magaalo horta aada u fog baa qofkii loo dirhayaa waa kow. magaalo uu horey u garan jiray ma ahan waa laba. luqadda dadku u tegi doono ay ku hadlayaan ma garanayo waa saddex. boqorrada loo tegi doono dhaqan boqor walba dhaqan buu leeyahay dhaqamadoodina garan mayaan. boqorrada qaar waxay u baahan yihiin markaad salaamaysa inaad u sujuuddo kuwa qaar waa loo gurguurtaa
kuwaba sibaa loola kulma dabeecadaha boqoradaas ay leeyihiin ma garanayaan dadka nabiga uu dirhayo. thumma innahum saxaabadan la dirahayo sayadcuuna waxay u yeeri doonaan haa-ulaa'i almuluuka boqorada oo kuwa ah yaa waxay ugu yeeri doonaan markay u tagaan ilaa tarki adyaanihim diimankooda inay ka soo tagaan. waa mid ka sii daranba wixii aan soo marnay. boqorka marka loo tago diintaadii ka soo tag baa la dhihi. wa mufaaraqati cizihim karaamadooda iyo sharaftay lahaayeen gaaladu inay ka soo tagaan oy faaruqaan baa loogu yeeri. wa sultaanihim madaxtooyadooda iyo boqortinimadooda inay ka soo tagaan baa loogu yeeri. wadukhuuli inay soo galaan fii diini qowmin qoom diintii inay soo galaan ayaa loogu yeeri. qoomkaasoo kaanu ahaan jiray ila alamsi alqariibi shalaydii dhoweed min bacdi atbaacihim kuwa gaaladanba raacsan. halista ay leedahay dadkan la dirahayo markay boqorada u tagaan waxay ugu yeerayaan boqoradaas inay diinta ay aaminsanaayeen ee gaalnimadeed inay ka soo tagaan. karaamadii iyo sharaftii ay ku dhex lahaayeen ummadoodana ay ka soo tagaan oy faaruqaan. boqortooyadoodii madaxnimadoodii inay ka soo tagaan oo xaggay aadayaan inay qoom diintoodii soo galaan. qoom diintoodii waxaa laga wadaa diinta islaamka laga wadaa qoom gooni oo lena ma jiree siday gaalada aaminsan yihiin diin qolo gooni ku ah inay tahay aaminsan yihiin gaaladu. marka fikirkoodii buu sheekha qiyaasahayaa ee diintu waa diin illaah. marka qoom qureesh ah carbeed diintoodii inay soo galaan ayaa loogu yeeri say iyaga aaminsan yihin way gaalada macnaha ee diinta ilahay baa iskale. qoomkaas qureesheed ama carbeedoo shalaydii dhoweed gaaladan raacsanaa. ilaan dadkan carbeed waxay kala raacsanaan labadaas dowladooda waaweyn baa la kala raacsanaa. kuwana waxay raacsanaayeen kuwa roomaanka kuwana iiraaniyiinta. wallahu aclam.